إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيها الأحبة، آيات كاين آخرني من سورة ياسين، وقصة كمد قصص كربي وقرآنك كقور رمي. إلهي سبحانه وتعالى وحكى والرمية مقالوا loo soo diray laba rasuul oo beenisay, oo rasuul saddexaad la soo diray oo beenisay. waa magaalo saddex rasuul yimaadeen oo saddexdii rasuulba la beeniyey. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa markaasi nin mu'mina oon isagu rasuul ahayn oo aan joogin meesha la ysku hayo, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadiisa uu ka yeelay qur'aanun yutlaa ilaa yowmi alqiyaama, qur'aan la akhriyo ilaa iyo maalinta qiyaamaha. waxaad qiyaastaa qof bini aadamah oo siiqa nakira ilaahay uu soo arooriyey. rajul baa ilaahay ku tilmaamay, laa shaara walaa sifa. wax kale oo la raaciyey ma jiro, wax taytale ma wato. ilaahay intuu rajul ku tilmaamay weliba siiqa nakiraa u soo aroortay, ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala min fawqi sabci samaawaat ka soo waxyooday ninkaasi qisadiisa. ilaahay wuxuu leeyahy: wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa. waxaa ka yimi magaalada halka u dambaysa, qof goobta joogay ma ahayn. min aqsa almadiina buu ka yimi baa ilaahay ku sifaynaya. waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey inuu rajul yahay. dadka badh waxay isku mashquuliyaan magaciisa iyo magaaladu jooga iyo waxaas muhim maaha. hadday muhim yihiin rabbaa ka warrami lahaa. qur-aanka qisaskiisu uma qoro sida qisaska bini aadamka loo qoro. qisaska bini aadamka waxaa loo qoraa in la horraysiiyo magacyada meesha uu qofku joogay, magaaladuu joogay, wakhtigu ahaa. qur-aanku inta badan sidaa uma warramo. qur-aanku wuxuu tilmaamaa mowdic alcibra, meesha ay ku jirto qisada danta laga leeyahay. saa awgeed ilaahay ninkan magaciisa ma sheegin, madiinadu tay tahay ma sheegin. waxaa la yidhi ninkani wuxuu ka yimi min aqsa almadiina, magaalada xagga u dambaysa, meel fog.
weliba waxaa laynoo sheegay sifada uu ku yimi rajulun yascaa baa ilaahay yidhi ninkaasoo rooraya ordaya naskan qur-aankii wuxuu tilmaamayaa qofkan muslimka ay mas-uuliyadda uu isa saaray ismuu odhanin war 3 rasuul baa la beeniyey adigu maxaad sheegaysaa ilaahay qisada wuxuu ku tilmaamayaa 3 rasuul inay magaalada joogaan idinka wax laga yaabaa inaad istidhaahdaan 2 wadaad ama 3 wadaad baa joogay adigu maxaad sheegaysaa ilaahayna wuxuu tilmaamayaa meel 3 rasuul joogto oo 3 rasuul baa la beeniyey muu quusanin oo ismuu odhan oo rasuul baa la aqbali waayo adiga maxaa lagaa yeelayaa ee wuxuu dareemay mas-uuliyati dacwa diintan in mas-uuliyadi ka saaran tahay wuxuu dareemay dadka quluubtoodu inay biyadillaahi ku jirto quluubta bini aadamku waa biyadillaah subxaanahu wa tacaala falsafo badan iyo wax badan uma baahna cidda alla hanuuninayaa kalimaad yaroo kooban bay ku hanuuntaa sidaa ogeed buu ninkani yimi isagoo leh ittabicu lmursaliin doorkuu qaadanaya waa intaa un waa rususha raaca qisada waxyaabahay tilmaamaysa waxaa ka mid ah mas-uuliyadda qof kasta oo muslima diintiisa ka saaran dadkii muslimiintii hore bimujarad intimaa'ihim ila addiin kaanuu ducaatan lilaahi subxaanahu wa tacaala markay islaamaana laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah yidhaahdaan oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin 2 casho 3 maalmood la joogaan kadib waxay qaadi jireen xilkaa inay tolkood diinta ugu yeedhaan cilmi badan uma baahna inaad dadka diinta ugu yeedho waayo diintu usuul bay leedahay furuucda culammadaa dhigta diintu usuul bay leedahay ilaahay waa keliya caabud nebi maxamed waa rasuulkiisa iyo rumee salaad tuko arkaan alislaam waa wada taqaanin arkaan uliimaanna waa taqaanin walaslu fi ddiini haada asalka diintuna waa taasi waxa dadka loogu yeedhaana waa taasi sidaa awgeed baa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bimujarad ay islaamaan ayay xilka diintan qaadayeen inay muslim noqdaan oo ashahaataan ayay diinta ku qaadayeen xilkeeda bale nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu ku yidhi qum faandir imise qur-aanka soo degay riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin waa suuraddii 2 oo markaa dhowrka aayadoode iqra ugu horreeyo qura soo degay 4 suuradood qaybahooda u horreeya ayay kullu lmufasiriin isku waafaqsan yihiin inay yihiin qur-aanka intii u soo hordegtay waa iqra bismi rabbika aladii khalaq aayaadka ugu horreeya iyo yaa ayuha almudathiru qum faandir yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nuun waalqalami wamaa yasquruun 4taas suuradood bay mufasiriintu kala horraysiiyaan ayan kaanad xataa haddaad tidhaahda 4 waa tii u dambaysay qur-aan imisaa soo degay intaasuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo waxyooday laakiin waxaa la yidhi qum faandir kacoo dig idan dadka in loo digaa cilmi tiro badan uma baahna waxay u baahan tahay qofku inuu mas-uuliyaddaa qaado nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu diinta dadka u sheegay abibakar sidiiq baa rumeeyey abibakar isma oo dhan nebigaa jooga adigu waxba ha sheegin bale culammada taariikhda qaar ka mida waxay tilmaamaan 10 lmubashiriin inta u badan inuu abibakar islaamiyey طلحة iyo abu cubayde iyo cusmaan iyo raggaasi miisaanka abibakar bay ku qorayeen abibakar baa intuu islaamiyey nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam idan xilka diintu wuxuu saaran yahay qof kastoo muslima waxaanu ka saaran yahay diintan ilaahay inuu qaado oo dadka gaadhsiiyo nebiyullaahi moxamed waa aakhiru rasuul nebi ka dambeeye rasuul ka dambeeya lama soo dirayo isagaa ugu dambeeyey intuu nebi maxamed gaadhay dunida jaziira alcarabiya kama bixin nebigu calayhi salaatu wasalaam
ومع ذلك إلهي وحلي نذيرا للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دادور دبا نكو صادري وهدي دادور دن لو صادري إسنان جزيرة العرب كبحين سيدابا يكون عيسى وحيكون عيسى قف كستو مسؤولة بمسؤول قف كستو مسلمة أي مسؤولية داسي سارنتي ولذلك مركي حجك النبي صاحب عليه الصلاة والسلام صحابة أولها اللي يوحكوا بلغوا عني ولو آية وردتك يقعد سيئة آياتنا هالنقطة إلهي أي النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية قرآن من ساق قيب سنتي نك أقول رفعت حدا قيب سني تضبع يضاد بوهيا قف كوير هدا الداعي مسلمة هاي ضد بدن أنا فاتحة قاعدين بايدن للنول ضد بدن وأنا فاتحة قاعدين بايدن للنول نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هذا وكيل كاه هدي سجل ليدي نذير للعالمين باطهي أديكو كسو قارسيو حلقة كساري أدنا أنت تقاري سينا تقارسي سابا كوركا قصارا أيها الأحبة لسما يرهدو أرمى لقا أقبلي واياه نكان سدح رسول بالدي دي اسمه أورانين warna marka saddex rasuul diiday adigaba ku yeeli maayaan aduu meel saddex caalim oo muslim rasuulka kaale saddex sheekh oo culamo oo ka dambaysa meel nimay la hadleen ama qoom ay la hadleen oo ay diideen adnama soo xaydxaydan lahayd oo ma sooran lahayd wuxuu sheeg soo waxa oran lahayd culamadii bay beeniyeen kuwa culamada beeniyeen maxay sheegayaan qof walba meel ba kelmadiisu ka socotaa ninka waayeelka ninka taajirka ninka sultaanka nin walba dad baa ka dambeeyo ereygiisa qiimeeya وهذا كوي هذا الصدق هلا يلاني كسر علينا مصالح يكون قبل درادود إلهنا القرآن كو حقوق ليه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلهي عندنا ما تكليف فنين وحكسية مويانه آخر إلهي وحكو يدين يا وحكسية محات سلام كو قبط هذا تاجر هاي محات كو قبط تجارته بشيء كريس حولها قاد وحكو قبل كريس هذا سلطان هيدي هذا عاقل هيد محات كو قبط هذا دفتهن يقبا ياها محات كو قبطي إلهي الدقم كي يفريد كآخرة حتى يسوسي الله حساب مايو نفو البوحي لسيا لغو حسابيا قفو لبدين تنمركا مسؤول بكيه ساوغيد دور السببات بوين الدين تو حنبارتا كو وين دو حنبارتا إلهي حجدي سينا دتك كو اكتو رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دتك الله ما شاء قرى الراعي مايان ييكو الراعي حجة كدلوك ويا نبي عليه الصلاة والسلام حتى المام يا قيامها الرسل يا النبي إيمان دونه قيامها النبي با إيمان دونه أنا عيد بالله سعن مد با إيمان دونه قفل الصعده مد با إيمان دونه الله بالله الصعده هذا هو النبي ما دعوته ما فاشل بيهاي مايا قوم دقاتك باكو بيغمي لكن واجب كيها آخر إيراني عذر دار هلين بكو أوغي إلهي سبحانه وتعالى وحلي الرسول أي منذرين أي وحنو صادري لئلا يكون على إناني هلين آخره وح عذر دار إناني هلين عذر دار كادق على غير بين تفيده شقدا ما هي ندتكو إلهي الراعاني إن أنا الراعين إلهي بتاكو شغله أدوين تبيمسو عديسد دتكو إن إلهي الراعان بعد قد شاذ صارن سيدا أوجد أيا قولدي اللي يري لما تعذون قوما الله مهلكهم محادو وانني سندول إلهي سبحانه وتعالى هلاقيه نمانكي سبت دا وقار صدي يلي يري سبت دا وقار صنينا بلشدي صدح قيبات باي نغطي قيب وقار صدي فرسمي حيالدين تيسميسي إيوه قيب تري وركداية إيا قيب اسكا أمستي qaybta iska aamustay in badan quraanku wax kama sheegin laakiin wuxuu sheegay warkoodii ahaayo kaliya lima ta'iduna qawman ilahum hulikum wa nimankan diinta waa ogyiin
إن لقى ممنوعين وأوجيهين محاو وانينيسان كون إلهي بهلاقي ويدق حدانه محايكو يراهده قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وحنو وانيننا لبشي معذرة إلى ربكم آخرة إن أنو حجدي كو أغني إن أنو الله نمادان آخرة أننا نلو قبصا dadka la nooshin haday yiraahdaan diintuna may soo gaadhin idinka la idin qabsanaya idinka la idin weydiinaya ma ku ogteen mise kuma idan oogin dadkani waxay leeyihiin waxaanu dadka wax ugu sheegaynaa laba sababood macdiratan ila rabbikum inaanu marka hore xujada ku oogno si aakhiraan cudurdaaru helaana waanu badbaadno idan adiga badbaadadaada ku xidhan in dadka diinta gaarsiiso iyo wala'allahum yattaquun iyo la arkay inay iyaguna ilaahay ka cabsadaan oo waanadu dhagahooda gasho labadaba waa rabnaa bay leeyihiin idan dacwada waxaa loo sheegaa inaad xujada dadka ku oogto waxaa loo sheegaa inaad adiga aakhira cudurdaar ay ku noqoto waxaa loo sheegaa dadku inay hanuunaan dadku inay hanuunaan inagu inta badan dadku hanuuni maayaan waa hanuunayaan tun baynu moodnaa inay tahay sababta wax loo sheegayo لكن سببها صعدا أي قرآن كوينات المامية أيها الأحبة نكن مسؤولية دا سوق هذا إنه مقالة هل كي يدود بيسكي ما ده يسقى ولي والرورية ورك وشيء أنا وكوبي اتبعوا المرسلين بولي اتبعوا المرسلين تاريخ الإسلامي قامر كلا جور رمه إن بدم كتب التاريخ waxay ka waramaan kutubtana taqaaniina taariikhdu inta badan taariikhul juyuush wal urush bas boqorkaas joogay boqorkaas bedelay boqorka kala qabsaday boqorro iyo futuuxaat gaala la dagaalamay magaalo Hiblaya la furtay magaalo Hiblaya la furtay laakiin taariikh ka muhiimsan baa jira oo dhulka la ku qoran taariikh fath al-qulub dadka qulubtooda yaa furtay عالم الإسلام من مشرقه إلى مغربه دد كان إسلامي أسكرتوا وحما إسلامي صح أسكرتوا مقالي دمسا ما قبصتا دد بيحوكوا قبصتان لكن يا إسلاميي ددك جيوش من الدعاة بإسلاميي دد دين ودي وددك الدين وشيغيو دنتو دو هيدني ددك الدين تقارسيان ددك أسيم بدنو كم دوال جندي المجهول وددان تاريخ بقرين مثال بسيط بسينية عالم الإسلام إن من تتار لا يراه شبيي مغول تتار بريق فوق بيك صوب لابي شاينا غاغار كيس دبتنا مسلم كالدولة دي سيور نمو وسو شبيي إلى يبي سو غارن فلسطين مركي مريين لحديدة أيام مسلمين تي مصر شوكتي سرور ستيو تشبيسي مسلمين تا مصر زحفقيهم بيشوشيين انتي كالوردن عالم الإسلامي ويهيستان وحيدا وحريم يا مغشين وحيدا وضنبوه عالم الإسلامي حريم يا مغشين مسلمين لا ضي مسلم قاعدا كيسين الزحفقات شوشيانهم بيكو شوكسدين بس يا هدا حرية عالم الإسلام دعاة بحريسي دادان انت بدن تاريخ قريب بحرية دولته تتار كماشا كردسنا رج مسلمين تكمدون بالدين وشيغيو يجب الإسلامي يجب الإسلامي دبتنا يجب الدبو النقضي عندما مسلمين الدنيا دبو فرطه القبيلة الذهبية قيبتي وغويقة الراشية قيبة بدن وكم دي يوروب تربريا دول كان فرنيسي وضد منغوليين ما تتارة ودبلو إسلامي تاريخ دو ما شيكتا انت بدن تاريخ دو ما شيكتا ادو قرن ميسيد المها القرآن كودقيسا اما ددك الدين تو شيغيسو waxaa laga yaabaa ka ilaahay dunida ku furi doona inuu kan yahay ama kani ku wuxuu sii dhigay inuu yahay ama kiisa shanaad inuu yahay ma garanaysi waxaad culama maqashay soo saaray shaafici yaa keenay midun ba shaafici bargu yara faatixada u soo dhigay oo diinta ku soo duway
oo toosiyey kii garan mayno laakiin shaafici oo dhammi wuxuu sameeyey kaa miisaankiisu ku qoran yahay idan qofka muslimka ahi ilaahay waxba kama lumaan qofka muslimka ahi wuxuu u heegan yahay adigu garan maysid nolosha cidda beddelaysa ducada maanta joogtaa waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo dariskaaga dee haddaan dad badani fadhiisan ma laba qof aad wax u dhigaysaa qof qura wax u dhig kaasi kugu sii dhiga kugu saddexaada u sii dhigaa laga yaabaa inuu furto waddankan aad joogtaan oo dhan diinteeda beddelo aduu garan maysidse yaa alla barakaynayaa ma ogid sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaadhsiiyo mas-uuliya haadihi dacwa oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rusushu furaska siday uga faa'iidaynayeen nebiyullaahi yuusuf oo xabsi ku jira oo laba wiil u yimaadee wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhumaa innii araanii acsiru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكل طير منه لما ويل با حبسك الله قال يوم يدوح يدي ريان أركانيغو خمر ولا قاية متكي كلنا وحيدي أنيغو خبز مدح كسيده وشمبرعنا أيام بانركي إن نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين بيداي نو شرح تأويلك الرياضة نوشيك وحنكو أرقنا قف صوبنا ونكسرنا طهي نبي الله يوسف انت أنو الرياضة ودو الشرح وحو كبلا بينو يسوي سو شرحا يوحى آمن سيء دين الربي سيء إني تركت ملة قوم دول بانك إيمي بيود أنا إلهي بالرميسنين ومشركين وحن راعي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب aabbayaashay diintoodii tawxiidka ahayd baan raacay buu leeyahay markuu isu sheegay wuxuu rumaysan yahay iyo wuxuu yahay intaanu u fasirin riyadoodii fursadaa yar buu ka faa'iidaystay dabeetana markaasuu leeyahay yaa saaxibaya sijni aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar war ma ilaahyo badan in la raaca ayaa fiican mise rabu samaawaati waalardi ina raacdaan baa wanaagsan dacwo bilaabo waa fursad su'aal la weydiiyey buu isku dayayaa inuu ka jawaabo intaanu jawaabta siinin inuu ka faa'iidaysto wuxuu rumaysanaa inuu dadka kan u sharxo imisa fursaa ku soo martay nolosha imisaa tijaaro la wadaagtaan imisaa jaartiin imisaa saaxiibtiin imisaa iskuul wada dhigataan imisaa jaamacadda wada joogtaan imisaa isku dhadhowdiin imisaa wax kala iibsada imisa fursaa ku soo martay intee baad noloshaada ilaahay diintiisa uga faa'iidaysa wixii fursad ku soo maray hadda furaska dhaqaaluhu idinma dhaafaan hadday kuu bidhaanto meel yaraad si leedahay waxbaa laga helayaa waad qodaan qofna kama tago laakiin fursadaha diinta ma tijaabinaa inaynu qodno oo isku dayno inaynu dadka diinta u sheegno ayuha alaxibba dacwadda tani afarta wadaad ma saara waxay saarantahay qof kastoo muslima diintan inuu xambaaro qof kastoo muslima bay saarantahay hadduu sultaaniyey hadduu madaxweyne yahay hadduu sarkaal yahay hadduu taajir yahay qof kasta meelo badan aan aniga layga dhegaysanayn baa adiga lagaa dhegaysanaya oo ama odaynimo lagugu qadarinaya ama hantidaada lagugu qadarinaya ama booska dawladda aad ka joogto lagugu qadarinaya oo dadku ay wax kaa dhagaysanayaan aakhira ilaahay uu ku weydiinayaa diintii maxaad ugu qabatay waxaan ku siiyey waxaad haysatay maxaad diintii ugu qabatay ninkaas muslimka ah rabbi quraankiisa uu ku qoray ee ilaa qiyaam saaca quraanka inuu ilaahay ugu dhawaanayna akhrinayno weedha laga tilmaamay waa inuu yidhi tabacu lmursaliin والرسوش الراعة بكير رسوش راعة إلهي الله توبت كام قدام دفل ويدست الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى قصة نكاسي وحين وغت المام اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. والراعب يريد أن أجر إذن ويدي سنين. وهي علماء يريد أحسن وسيلة للدعوة وإن أتقفك الدنك لهين أدو قفك كوكتهمه إن أد منصب يا ماموس كدونيسو إن أد لعقي حول كدونيسو إن تشيب كيسا كبارانيسو وحي أبادان تهي إن أنه ركو دقيسني. ولذلك أيونين كان يمركو تولكي لهد لا يوحو لي إني هنونسي وحو كهرو مري إن أنا يدنك على لحين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا أجر دوننا أنا يدنك الدونين محين الدين توشي يغينا إننا أخركو بدبادنو إننا إلهي غرى لقالينو إننا إلهي أجر كجهله. ولذلك ما إلهي الرسول شي سمركو كور رميو في سورة الشعراء أما سورة ككلابة فاتقوا الله وأطيعون مركا إلى هذا محيكو حكسينيا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وحأجر إذن كما الدورين يدو إلهي أقيهي ورسوشو إن أنا يددك تشيب كود الدورين إن ما وحبينك قاتان أنا الدورين أيا وحل يددك وحد وعضيسان قل آيات ككالة dadka waxaad u sheegtaan baa la leeyahay inaydan wax xoolaa ka rabin waxa jaraynaydin ka dun wahada huwa al-aslu lid-din asalku diintu waa in ilaahay loogu dhawaado. nacam haddii ninka sheekha ah yaan jeebkiisa wax ku jirin habeenaya maalinbana uu carruurta qur-aanka u dhigaya ama kan wax dhigaya wax la siiyo weeyaan. laakiin intiinan kale xoogsata idinka ajar dooni maysaan miya أما الدعوة إذن ما صار رميا إنتي نحوك ستا ويردو كجلي أكتهي ضدك إنت أجرك كسيسان كان الشقاء وقدك تنوح مودي سنة وشقاء سنة أو حوك سنة يا دو وداد حوك سنة لكن أسألك وحويا دين تينا لقوم حوك سنة با أصلا أسألك وحويا ضدك إن الدريمان إن الدين وضعه إن تجيب كودا باران السيناني مودين أصل كواكا أصل كوين واحد شيء سجنك الرادسه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي بيعة العقبة الثانية صحابة أنصارت مركوية مادين أي هشيس كلا قالين هشيس بيلا قالين إنه سوى جرودو ومركاسي أي كم من عنيان وحي نفتود يا مالكود يا دمركود يا عرورتود سيدا يو إلاليان سلم دين يو إلالين دونا النبي عليه الصلاة والسلام ولبا يجو صحابي يقول يا رامر كيسنا النبي بيعاد الله قال وحول ورسوقا ورهدا النبي محمد قادتان عرب وردمي مال قرا إذا كسود التوجا نسانا والله إذا لا ضرير دونا واحد هذا نداف ويل كيرو ساسا النبي هشيس كل قليل هاي سؤال بين النبي ويديان عليه الصلاة والسلام حديثك حسن كا فما لنا بين هذا هدانك الدفاع عنه ودينتا نفي مال بوهره وقالوا دانو ببعدقنو ما لنا نحن نقول لنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كمورا إن أنا قد بضيبة مدحويني يالنا غنيسان أما وزيران غنيسان أما قدتك وحيلا قابو حضرنا سدى محل لي مركادنا وحقا بكسو قاري دونا ملايكا سو قاري منطقة بني آدم كي عادي واكا وحيلا قابو محل لي باكو عكته صحابة واحدة فما لنا محانو لنا نبي عليه الصلاة والسلام أوران دبضيبة أنصاري وحما موليسا غنيمة حويدين بورين دونا حولان دين سين دونا مقعية ما مصباح للدونتان منا لغم أوران لكم الجنة بنبي كويد عليه الصلاة والسلام هذا دين توهي لسان جنة ليدين أصل كواكا مركا
diinta qofkii maal gashada caqli gashada xoog gashada ilaahay buu wax ka raadinaya subxaanahu wa tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala buu wax ka raadinaya ma aha meel loo soo shaqo taga asliyan waa meel ilaahay lagula xoogsado waa meel ilaahay ajar lagaga raadiyo subxaanahu wa tacaala laakiin hadday noqoto waxoogaa lagu xoogsado wadaadkana loo arko in niman xoogsanaya diintu faafi mayso diintu waxay faafaysaa markaad dhammaantiin qaadaan markaad ku xisaabtanto mantiqa ah inaad ilaahay wax ka raadinayso marka aanad odhanin qolaannu lacag siinaayo noo qaabilsan aad tidhaahdaa anigaa mas-uuliyaddu isaarantoo fulinaya anaa mas-uuliyaddu isaarantoo fulinaya marka aanad odhanin haddaad shaqo soo yaro hesho waar bal qur-aanka idinku sii dhiga anigu waxoogaa baa meel halkeera ka helaya wadaadkii in yar isku duwaabo hadduu yidhaahdo sii wada waxoogaa lacagaa meel ka muuqatee dad minis lacagtaa inooga qiimo badan inaynu diin sheegno waxay ahayd inaad lacagta beerdarayso si aad diin u sheegto inaad tidhaahda ilaahay waxaan kula baacmushtaraynayaa wakhtigaasi saacaddaa inaan wax dhigo walow hal ilmana wax u dhig hal qofa hanuuni wakhti aad diin ku sheegto waayi maysid wakhti aad xilkaa qaaddo waayi maysid cid aad u sheegtana waayi maysid qof kasta cid ka diin yar baa joogta qof kastoo inaga mid ah cid ka diin yar baa joogta oo waxuu u kordhin karo intay doontaba ha leekaatee midaad tidhaahdo war khamriga iska daa iyo midaad tidhaahdo war salaada tuko midaad tidhaahdo war ilaahay ka cabso midaad tidhaahdo war gabadha si fiican u qab waa diin wuxuba idan qofka muslimkaahi wuxuu sheega ma waayo saawgeed ninkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay waxaa lagu sheegay inuu lahaa rasusha raaca rususha markuu ka hadlayana wuxuu yidhi ittabicuu man laa yas'alukum ajra war cidaan waxba idinka doonaynin inaa hanuuntaan uun rabtaa ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun inaanay wax idinka doonayn waxa u raacsiisan ariiqa saxaa bay hayaan wakhtigoo kooban daraaddeed qisada wadi mayno laakiin inta ugu dambaysa aan akhriyo qiila dkhuli iljanna ninkani dadkii xujada wuu ku oogay mufasiriintu waxay idhahdaan isna waa la dilo waxba lagama dhegaysanin dabeetana toos baa ilaahay u yidhi janno gal qiila dkhuli iljanna shahiid baa tae gal jannada baa la yidhi markuu jannada galay muxuu ka fakerayay adiga haddaad dad diin u sheegto ay ku dilaan inay ku dilaan daayo hadday ku yaracayaan ilaahu kuwan halaag inaad tidhaahdo habaartantaa laga yaabaa ilaahay wuxuu ka warramayaa ninkani markuu dhintay ee aakhiro qabtay siduu u fakeraya caqliyaddiisu waxay ahayd yaa layta qawmi alla jeclaan lahaaya buu leeyahy tolkay inay ogyihiin sida rabbi iigu dambi dhaafay wayana hanuunaan weli isagoo aakhiro sii jira nimankii dilay ma laha ilaahay oo kuwaasi dartaa bay noo laayeena cadaabka ka gure wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaayee tolkay inay diinta qaataan oo ay gartaan sida rabbi aniga igu naxariistay macnaheedu waa maxay waxa weeyaan qofka muslimka ahi waa qof laabtiisu ballaadhantay waa qof colaaddu ku yartay waa qof dadka khayrka la jecel waa qof jecel inuu wanaag u faafo waa qof aan cuqdad qabin ma intii rususha lagu yidhi in ka badan baa adiga lagugu odhanaya ilaahay rusushiisii baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa saaxir iyo kadaab iyo waxa inay ku sheegeen beenaalaa tay ama saaxir baa tay ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo socdaa adeerkii daba socday ka warra adiga haddii adeerkaa ku dabagalo oo meeshaad istaagtaba uu yidhaahdo yarkan ana adeer u aha waa been wuxuu sheegaya waxba kama jiraan sara jooggaa naftu kaaga bixi lahayd baan u malaynayaa laakiin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo abiilahab daba taagan yahay oo adeerkii ruma ah oo le kan yar annagaa isku reeree waxba sheegi maayo kamuu quusanina saasuu diin u sheegayay idan waa lay caayey iyo waa lay maagay iyo dadkani way dhaga adag yihiin dacwadu kuma joogsato qofka muslimka ahi waa inuu xilkaa qaadaa ah inuu dadka khayrka la jecel yahay inay hanuunaan inuu jecel yahay nebi moxamed baa loo yimi calayhi salaatu wasalaam
وقبيلة الدوس اللي أورنجر أي دين تديدي مع أضيودي أي كديدين طفيل بن عمر نوايله ومضحوة وقبياية وافتهنا والله قدم بأيه والله هذا ومرسين واي وصان قضوا حلي إله رسولك يسير هردوس دينتي ديدي أقبل نواي إلهي وبارك وين الله لا قد دينتي ديدي دبتنا نبغى قعمة كورو تاجا مركز الله يدي مرة دين نبي محمد قعمة كورو تاجي هردوس ما أنت هلاك سمع اللهم اهدي دوس واتني بهم بويدي نبي حديث كبخاري إله هردوس هانوني أو إيكه إلهي هردوس وهانوني يوا كاني دي أبا هريرة كمدها كوي الله كاني أبا هريرة كمدها إذا دتك هدينو خيرك الله جعلنا وددالو ku xisaabtamayna iyaga caydooda iyo maagistooda iyo colaadooda iyo waxay sameynayaan waxaas ilaahay baad ajar kaga helaysaa ku xisaabtamayna ilaahay ninka wuxuu quraanka ugu sheegay baan leenahay shaqadu qabtay daraadeed hadda iyadoo aan la aqbalin la dilay ninkan dad badan oo hanuunay oo hanuuniyay quraanku ma sheegin bal in la dilaa ka muuqata quraanka haddana mowqifku istaagay ربي با من فوق سبع السماوات انتو كحس كتابك خالد كاكو قري سأوغيت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هدات شعشة هيجيتك سقاط إلهي سبحانه وتعالى هدات ربطين وكوش علاده إلهي يدتك سويان مخلوقات كاسي ربي قوت كحدين عابدان نبي محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقم الصلاة